طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد ولا ليال. الله سبحانه وتعالى هدو إدمه وحن جعلها حلقة كوبا وأن كجاه الله إنه بشر رمضان وحكو سابسن ما دام إنه سوق الله، وإلهي سبحانه وتعالى نصيب إنوسي إن بيشي سوق الره. مواضيع ذا بيشة كسابسن أنا كلمتك وأن أنكر هذا موضوع سوى حويان أحوال السلف في رمضان. دتك السلف كها إن جوه الرجال قدوة يقضي شذا إناءها بشان مركي أسوق الشه حال كوض السديبها إن شاء الله تعالى وحي له جرنسية أيان كأورن دونا. الله سبحانه وتعالى وحكو خاصي علي بشان يدعه واحترب بدن أو خصائصه، وبشي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأسود شيء، وبشي توبة كينك وإلهي سبحانه وتعالى الضومه وفري الباب كتوبة، وبشي مغفرة يد بالدافك وإلهي سبحانه وتعالى الضومه وذنوبته ودافيه حمانتنا الله سبحانه وتعالى وكتر تريه، وحاكسوا بشان العتق من النار، وذلك في كل ليلة. إلهي الضومه إنه كحرن ينارتا habeen kasto habeenada markaa kamida inuu qayb kamida ka xoreynayo. waxa ku sugan albaabada jannada in la furayo oo mid aan laga xirayn ilaa bisha ay ka baxdo. waxa kamida kuwii naarta in la xiraayo oo mid aan laga furayn ilaa markaa wax bisha ay ka dhamaato. waxa kamida khasaa'is ila dhigay sheeydaamadii baa la xirxiraya kuwoodii maradada ah oo markaa wax madaxa adka u dhibta badnaa. waxa ku sugan bisha tan fadaaisha la dhigay kamida Laylatul Qadr oo wuxuu ka khayr badan yahay markaa kumbirood ka khayr badan ayaa Allah subhanahu wa ta'ala u dhaxdhigay. aad iyo aad runtii bishani waa bid nafaxaad iyo khayr tira badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gaar yeelay bilaha kala sokadooda. marka saadarteed dadkii salafka waxay aqoonsadeen qiimaha ay leedahay inuu yahay mawsim iyo xilli mudan in laga faa'iideysto oo qofku markaa waqtigiisa uu ku bixiyo daaca Allah subhanahu wa ta'ala. saadarteed bay guntiga dhiisha isaga dhigeen oo kubka u fayteen bishan iyada ah sidii marka ay uga faa'iideysan lahaayeen, iyagoo marka waxa weeyaan daacaadka Allah subhanahu wa ta'ala guntiga dhiisha isaga dhigaya. intaynan marka ishaarin dadkii salafka xaaladoodii, waxaan jecelahay inaan ishaaro xaaladu ku sidoo jiray qudwada salafka kuwii ku dayeen iyagu yay ku dayeen jireen oo qudwo u ahaa. وأنو قرأنا دوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسيدي مركا وحويان وخيرك وجود ذلك بشن يدا. ابن القيم رحمة الله عليه وحوليه نبي هديه سوحا كم إذا هي هنونك صلى الله عليه وسلم بشن مركو سوق قالوا بشن رمضان إنه تربضي النوعية عبادة. وحو أهانشري جبريل عليه السلام مثل سودقه وقرآن كلام مراجعية بشن رمضان. نبينا وحو أها صلى الله عليه وسلم markii jibriil la kulmo dadka marka khayrka midka ugu degdeg badan deeqda iyo bixinta dadka midka ugu badan ayuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam. wuxuu ahaa mid ku dadaala sadaqada, ihsaanka iyo samafalka, tilaawada quraanka, dhikriga iyo Allah xuska, i'tikaafka iyo masaajidka oo lagu nagaado. saadarteed ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam cibaadaad ka badan bilihii kale ku sameyn jiray kuwa ka badan ayuu ku khaas yeeli jiray bishan iyada ah. marka dadkii salafka taasiyan bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam iyagoo markaa ku dayanaya rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ayay iyaguna sidoo kale waxay ku camireen oo waqtigooda ay ku dhameeyeen bishan iyada ah. ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii u dhaweynaya waxay aad uga fogaadeen oo ay ka fogaan jireen wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala carag gelinaya ama soonkooda markaa wax yeelaya. dadkii salafka marka saasi ahaayeen kuwa ihtimaam xeel dheer u siiyay bishan iyada ah say uga faa'iideysan lahaayeen qurbaadka iyo waxa Allah subhanahu wa ta'ala u dhaweynaya. waxa sugan
inay ahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa barya 6 bilood oo ka horeysa bisha Ramadaan tan macna la soo gaarin ilaahay subxaanahu wa tacaala Ramadaanka inuu gaarsiiyo bay ilaahay weydiisan jireen maxaa yeelay waxay ku dadaalayaan oo ay garanayaan qiimaha ay leedahay bisha iyadahay inta ka dambeysana oo 6 bilood oo Ramadaanku ku jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay weydiisan jireen amalkii marka ay qabteen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka aqbalo ayay weydiisan jireen waxa laga wariyay ninkeeda Cabdulaziz ibn Daawud inuu yiri waxaan soo haleelay dadkii salafka ahaa ee iga horeeyay waxayna ahaayeen kuwa ku dadaala amalka saalixa amalka marka ay sameeyaan waqa'a calayhim alham muruga qaban jirtay markay amalka wanaagsan ay sameeyaan oo amal wanaagsan bay sameeyeen maxay muruga u qabanaysaa wuxuu yiri ayuqbalu minhum amla amalka ma laga aqbalay talow mise lagama aqbalin say ikhlaaska iyo wuxuu inuu noqdo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala raali uu ka yahay ay ugu dadaali jireen ayuu marka ina tusinaya marka insha Allah tacaala ahwaalu salaf ma soo koobi karo oo waa itira badan tahay laakiin daraf ama qaybo kamid insha Allah tacaala ayaan dul istaagaynaa xaaladii dadkii salafka ah ay ku sugnaan jireen dadka salafka ah iyo xaalkooda bisha Ramadaan markay joogan quraanka sidee buu ahaa waa dul istaagi doonaa wuxuuna qooban insha Allah tacaala dadkii salafka ahaa iyo qiyaamul leylka markay Ramadaan ay soo gaaraan xaalkoodu sidee buu ahaa dadkii salafka ahaa juudkooda iyo waxbixintooda bisha Ramadaan markay soo gaaraan isna sidee buu ahaa saddexda noqdo insha Allah tacaala ayaan jecelahay mid kasta in yar oo kooban daqiiqadaha aan haysto insha Allah tacaala inaan wax ka iraahdo haddaan ugu hormaro nuqdadii ugu horeysay oo ah dadka salafka ah iyo quraanka sidee buu xaalkoodu ahaa imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi waxa la wariyay inuu ahaa marka uu soo galo habeenka ugu horeeyay ee bisha Ramadaan wuxuu kulmin jiray asxaabtiisa macna dalabadiisa iyo ragii macna waxa weeye rafiiqiisa ahaa ayuu kulmin jiray salaada marka ayuu tukan jiray wuxuu akhrin jiray ragcad kasta marka 20 aayadood ayuu ku akhrin jiray ilaa quraanka marka uu saa kaga dhameeyo intaas markay dhamaato wuxuu ahaan jiray si gaar ah suxuurtii mid isaguna markii la suxuurto quraanka akhriya thuluth al-Qur'an ugu yaraan wuxuu dhow mararka qaar koodna uu khatimaba arrinkaasna wuxuu sameyn jiray habeen kasta oo isaga ah kadibna wuxuu oran jiray khatmi kasta oo quraanka la dhameeyaa wuxuu leeyahay dacwad mustajaaba ilaahay marka Allah subhanahu wa ta'ala ayuu aad iyo aad marka u bari jiray imaam Bukhari rahmatullahi alayhi arrinka isaga waxa soo guriyay ibn Jawzi sifatu safwa ayuu ku soo guriyay imaam Shafi'i sidoo kale rahmatullahi alayhi wuxuu ahaan jiray quraanka akhrintiisa mid aad ugu dadaala wuxuu ka soo guuriyay isagana ibn Jawzi rahmatullahi alayhi isagoo ka soo guuriyay ninkii la oran jiray Rabiic wuxuu leeyahay Shaafici wuxuu rahmatullahi alayhi bil kasta konton khatmo buu horta lahaan jiray 30 khatmo macnaha waan jeedaa 30 jeer buu quraanka dhameyn jiray Ramadaanku markay tahayna 60 khatim 60 jeer buu dhameyn jiray bisha Ramadaan waxaana waliba laga reebay quraanka uu salaadaha uu ku akhriyo kuma jiro intiisa kale markii caadiga ahaa bishii 30 jeer waa dhameyn jiray sida uu soo guuranayo ibn Jawzi markii Ramadaan soo galana 60 jeer buu dhameyn jiray quraanka imaam Shaafici rahmatullahi alayhi oo ay ku jirin quraanka uu salaadaha ku dhex akhriyo runtii waa dadaal aad iyo aad u tiro badan waxa laga yaabaa marka oo ishkaal laga yaabaa qofka qalbigiisa inay ku soo dhacdo nabiga waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu nahiyay oo uu diiday quraanka 3 bari wax ka yar in la dhameeyo aymadana waa u jeednaa hal mar wax ka badan baaba laga yaabaa inay maalin iyo habeen ay ku dhameeyeen arrinka isaga marka ma waxay khilaafeen wax muu jeedaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo amarkiisa miyay khilaafeen jawaabtu ma waa mada arrinka isaga in Rajab rahmatullahi alayhi ba ka jawaabay oo wuxuu leeyahay nahyiga qiraa'ada quraanka in la akhriyo 3 bari ka yar markuu nabigu diiday sallallahu alayhi wasallam waa cala al-mudawama qofku inuu daa'imo oo sida oo caado uu ka dhigto weeyaan ama qofku markuu yimaado awqaatul mufaddala
والأماكن المفضلة حلي فضل الإراد إلهي سبحانه وتعالى أوسيي أما بوس إيا مكان إلهي سبحانه وتعالى فضل الإرادة أوسيي قفك مركا أويماده نهي قاسي مسو قليه قفك مركا إنو عملك أوسمين شرميت كبدا لا لابك إيا ضعفك أوسميه ما دام فرصة أوهيسته أو حلي فضيلة قارة لأوشوغه أما ميل فضيلة قارة لأوشوغه إنو مركا بديو عملك خيرقاها arrinkaasi waa loo ogol yahay inay hada soo sheegaynabo nabiga sallallahu alayhi wasallam sameeyo acmaal dheeraad u san sameeyay jirin bisha Ramadaan gudaheeda xilliyadii kaleeto ayuu bisha Ramadaan gudaheeda ku sameeyay marka isma diidayaan nabigu inuu diiday quraanka 3 bari ka yar hal khatimo iyo marka aqwaasha afcaasha ay sameeyeen bacdu salaf laga soo guuriyay oo ah quraanka marka wax ka yar 3 bari inay ku dhameeyeen bisha Ramadaan waxa weeyaan fursa sanawiya oo qofka sanadkii mar soo maraysa marka culimadaasi waxay ku dadaalayeen maadaama fursad qaali ay tahay inaysan si marka waxa weeyaan aayar marka ayaan ku dhaafin marka taa isma khilaafayaan oo is waafaqayaan labada tusaale kaliya kaga gudbaya salafka iyo quraanku siday ahaayeen waxaan u gudbayaa dadkii salafka iyo qiyaamka ay ku sugnaayeen Ramadaanka dhexdiisa qiyaamu leelku guud ahaan waa da'bu saalihiin wa tijaaratu almu'miniin وذأبك إيا عادة إيا دقنك ددك صوصوبا إلهيينت الله سبحانه وتعالى ربك وتجعل وتجارة إيا قناعسك أي كقناعسدان وقت وضع أي كقناعسدان ويان وعملك أي سميين ددك فائزينت أي قوليستي أو الليباني ويان هبينك روحا مؤمن كاهي إلهي سبحانه وتعالى بالله قار نقونيا باهية وهجرة قفكو إساقو أوليه أقاره إنه مركب باهيه ساقارك إساقو أسلا أقيهي إلهي سبحانه وتعالى إنه ويديسته خاصة قلن كالضنبي ووقت نزول الإلهي إلهي سبحانه وتعالى وسوء دواني أوراني مركا يا إبريا وأن كأتشيبا يا دمداف ويديساني وأن أدمدافا موجدا حلي هذا أيضا إني مركا كعانو إباديان بريادة الله سبحانه وتعالى وذأب الصالحين يددك ونوناكسن عادة ذا أي سيدة أهيد إمام الحافظ الذهبي رحمة الله عليه wuxuu ka sheegay in la oran jiray Maxamed al-Luban inuu yiri wuxuu soo halali jiray bishii Ramadaan buu soo halalay taariikhdu marka ahayd 27 و 400 427 taariikhda hijriga ahayd Baghdad markaas buu ninkaas yimi Baghdad markaa duumi masaajid buu markaa dadkii ka tujiyay salaada taraawiixda ka tujin jiray dadku marka ay gadoomaan oo iyagu ay salaadooda ay dhameystaan ninkan isagu wuxuu sameyn jiray kama suuri jirin isagoo masaajidka inuu tukanayo ilaa salaada arooriye laga gaaro macna dadkii markii hore waa u tujiyay salaadoodii way dhameysteen waa gadoomeen guryahoodii bay aadeen isagoo marka waa ku hari jiray masaajidka waa uu tukan jiray ilaa salaada arooriye laga gaaro markii salaada subax tukadana darsi buu u fariisan jiray asxaabtiisa iyo ardadiisa uu xubaro marka wuxuu oran jiray lam ad'a jambi lin-nawmi fi hadha ash-shahr laylan wala naharan dhinacayga dhulka ma dhigin wax hurdo ah bishan iyada ah la habeen wala maalin midna sidaas marka wuxuu ahaan jiray mid ku dhameeyay bisha soo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa ee ugu dhameeyo waqtiga oo soo dhan wuxuu ahaan jiray wardi u gaaro oo quraanka uu leeyahay 7 jeer buu quraanka dhameyn jiray bisha isagoo murattal ah oo ku fikirayo macaanida marka uu xambaarsan yahay uu ku fikirayo طاووس وعسقنا لقى سوريي رمضان كأنه جوشيسي فراشكيسي وتجي أما غير كذا أو صدق وجود ذلك اللي مركز قيام الليل كدين مركز وكسو بودي شوضرجي وظهر قاطي قبله قابلي سلاد بوتو كذي إلا واقي وكبري مركز تكني كذبنا وحو يري طير ذكر جهنم نوم العابدين wuxuu duulsiyaa oo uu tagsiyaa xuska la xasuusto naarta jahannama iyo ciqaabka yaala dadka caabidiinta Ilaahay u go'ay hurdadooda ayuu tagsiyaa marka joodarigii uu tagay inuu seexdo waxa uu cunaysiin waayay jahannama inuu xasuusto weeye marka habeenkii wuxuu ku dhameystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u tukanayo oo qiyaam marka u taagan yahay ayuu marka ku dhameystay Sa'ib ibn Burayd Sa'id ibn Yazid afan سائب بن يزيد إسقنا وحى لجوريي إنه يري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
ayaa wuxuu amray Ubay ibn Ka'b iyo Tamiim ad-Dari radiyallahu anhuma inay isu taagan dadka inay tujiyaan Ramadaanka marka ninka qaariga ahi wuxuu akhrinayay miin boqolaal buu akhrinayay marka ragco halka ragco ku akhrin macna boqolaal aayadood oo quraana ayuu ragcad akhrinayay marka wuxuu leeyahay ninkaasi waxaan ahayn kuwa marka cuskada ul istaaga dheerida uu dheeriya darteed ayaanu marka ula cuskan jiray wuxuu yiri waxaan marka ahayn kuwa ka gadooma duluucul fajr markuu soo dhow yahay waabirku oo suxuurti mooye wax kale aan ka harin ayaanu marka salaada ka gadoomi jirayo masaajidka marka aanu ka bixi jiray Daawud ibn Husayn isaguna wuxuu wariyay oo ka wariyay Cabdiraxmaan ibn Hurmus ninka wuxuu ka wariyay wuxuu leeyahay ninkaas wuxuu ahaa كان القراء يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات عبد الرحمن هرمز وحو ليهي قرادي سلادة تكون جرتي وحي نو أهايين سورة البقرة هو نقول تجيه 6 ركعات طبعا سورة البقرة ولا بجس يبر وحول دوي هل معنى 6 ركعات نقول تكون جرين مرارك قار كودنا وحي نقول تكون جرين سورة البقرة 12 ركعات markay 12 nagu tujiyaan dadku waxay u arki jireen annahu qad khaffafa anhum inuu ka fudeeyay istaagii iyo marka waxa weeye dherarkii taagnaa badnaa ila taagnaanayay inuu ka fudeeyay marka ay arkayeen marka 12 ha ahaato ama 8 ha ahaatay suuratul baqara ay marka ay ku tukanayeen waa laba jis iyo marka wax dheer oo quraana marka bay ku tukanayeen Naafi' wuxuu ka wariyay ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu inuu leeyahay wuxuu ahaan jiray markay Ramadaanku soo gasho gurigiisu ku tukan jiray marka guriga uu ku tukado oo dadku masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka gadoomaan oo salaadooda ay dhameystaan oo guryahooda aadaan ayuu ubadiisa soo qaadan jiray weysadiisa oo biyo ugu jiraan kadibna marka masaajidka nabiga ayuu iman jiray sallallahu alayhi wasallam kama bixi jirin illa uu salaada subax marka uu ka tukado oo marka uu yimaado dhikri iyo Allah subhanahu wa ta'ala xuski markay dadku ka gadooman ayuu isagu masaajidka u iman jiray salaada subax marka ilaa ku tukadana marka kama uu san bixi jirin Naafi' sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan ka maqlay ibn Abi Mulayka ayaan waxaan ka maqlay isagoo wuxuu leeyahay waxaan ahaa mid tujiye bisha Ramadaan dadka ayaan tujin jiray waxaan ku aqrin jiray ragcadii alxamdulillahi faatir suuratu faatir waxa la eeg baan ragcadii ku aqrin jiray suuratu faatir hadii la soo celiyo waa laba maqre meelaha weeyaan imana soo gaari jirin dadka aan tujinayo qof kamidii inuu culays ku noqotay oo dhibsaday ima soo gaari jirin macna dadku si ugu raaxaysanayaan qiyaamul leylka iyo istaaga iyo quraanka badan oo la akhrinayo bishan iyada in marka dadku ayaan ka daari jirin ay marka daliil u tahay weeyaan taasna marka hadii aan inta kaga gudbo lamar nuqtada ugu dambaysa ban galay oo ah salafku juudka iyo wax bixinta Ramadaanka markaas sida ay ku ahaayeen ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللي سلف عده ay ku daynayeen horta waa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka warbixiyo nabigeenu sidoo ahaa nabigu waxa uu leeyahay sallallahu ajwadu an-nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi shahr ramadan juudka iyo wax bixinta iyo khayrka nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka ugu badnaa bisha Ramadaan marka waa ugu sii badnaa markii Jibriil uu la kulmayo oo quraanka marka uu la muraajacaynayo marka sida nabiga sallallahu alayhi wasallam juudka iyo khayrka ugu degdegi jiray wakadalika ayay dadka marka muslimiinta ah ee salafka inaga horeeyana waxay ahaayeen kuwa marka khayrka aad iyo aad marka ugu degdega ibn Rajab wuxuu soo guuriyay rahmatullahi alayhi oo Imam Shaafici uu ka soo guuriyay inuu leeyahay Imam Shaafici wuxuu yiri waxaan u jeclaan lahaa qofka xoolo haysta zakada inuu bixiyo bishan iyada maxaa yeelay waa bishii deeqda iyo wax bixinta daaci keenaya qofku inuu bishan zakadiisa ku beegana waaba jira oo waa maxay xaajada iyo baahida dadku ay qabaan oo masaalixdooda ay ka mashquuleen iyo makaasibtooda iyo shaqooyinkoodii oo dadka qaar kood laga yaabo shaqadooda inay shaqo adago maaragtay xilliga soonka aan la keeni karin sadarteed ay laga yaabo inuu qofku xilligii soonka iska bajoogo oo waxa way bagamuudo uu iska aado maadaama shaqadiisu ay adkaydba موجودة مركز درت واحد دردار من هبوليه تذكر مزكينته سكذا بحناية إلهي حوله أوسيي بشن يدا وبشر رمضان مركز إني وحبحيان أيام مركز علان لهبوليه ابن عمر وحل جسوا جوري سجن رضي الله تعالى عنه مركز صومه وبش يسوق شو الله يفضل إلا مع المساكين مساكين تمعود موي عد لما أفرجين جود يضيق أي مركز وحوي وحبحنته يسوق مركز كتر جميع إلهي سبحانه وتعالى دوانيه isla markaana wuxuu ahaa
haddii uu yimaado mid saa'ila oo miskiina wax weydiisanaya isagoo cuntadii faraha kula jira oo dad ay la cunayaan inta isaga nasiibkiisa buu qaadi jiray ninka miskiinka oo saa'ilka buu siin jiray saasoo marka ibn Umar radiyallahu ta'ala uu deeqday wax binta marka uu ku ahaa guud ahaan dadkii salafka walaalayaal abwaabu taqarrub ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa loogu dhawaado intaan sheegay ha ahaato kuwa kale ha ahaato dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad isugu taxallujiya oo ma xaway marna inay fursadaas ay ciyaar kaga lunto aan raali ku noqon jirin marka saa darteed waxa la naga rabaa dadka inuu ku dayanayna waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisi weeye waa qurul mufaddal oo dadkii salafka loo aqoon jiray marka siday bishan uga faa'iideysteen si lamida inaan uga faa'iideysano oo waqtigan inuu kamira dhalino waqtiga ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiya waa ra'sul maal qofku waa ku ganacsanaya qofna waa khasaaranaya qofna waa ku faa'iidaya waqtigan marka alla ku siiyo qofka haduu acmaashi saalihayd iyo wanaag iyo khayrkii uu galiyo qofkaasi waxa weeyaan tijaaradiisa iyo ganacsiga uu ku jiray waa kamira dhaliyay qofku haduu lumiyana oo maala yacni uu kaga dhumana qofkaas ganacsiga iyo tijaaradii uu ku jiray waa uu khasaariyay ogow waqtigaagu waa ra'sul maalka aad ku ganacsanayso ama kamira dhali ama khasaari wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي